الرحمن الرحيم magacaygu waa Nasra Cabdiraxmaan Jaamac kamid ah dhalinyarada gobolka Sool runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa inaan bogaadinayaa bandhiga carwada bandhiga buugaagta celiska Laascaanood oo ka qabsoomi doonta sanadkii labaad magaalada Laascaanood ee gobolka Sool runtii carwadani waxay leedahay faa'iido aad u fara badan oo dhamaanteen jecelnahay inaan ka wada faa'iideysano carwadan waxay tahay waxyaalaha loo asaasay in ay kaga faa'iideysano bulshadeena akhriska jecel iyo dhalinyaradu ay kaga faa'iideystaan maxay tahay celiska buugaagtii hore loo iibsaday oo la soo akhristay kala bedelashada iyo iibsashada adigoo buugaagii aad hore u iibsatay oo guriga ku yaalay ee carwadu uga faa'iideysan kartid in intay dibka uga iibiso aad ku bedelatid buug kale oo aad mar labaad ka faa'iideysatid buugii aad adigu maxay hore u iibsatay oo maxay ahayd guriga ku yaalayna aad uga faa'iideysatid qofka kale ee walaalkaaga runtii waa fikir aad u wanaagsan waan soo dhaweynayaa runtii waan ku bogaadinayaa dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijkan ka shaqeynaysa barnaamijkan oo sanadkii labaad ka qabsoomi doona 25 February magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaan jecelahay bulshada akhriska jecel iyo horumarka inay ka faa'iideystaan maxay ahayd fursadan aadka muhiimka u ah maxay tahay aniguna aan ka ahay runtii carwadu waxay saacidi doontaa dadkeena inta dan yarta aan awoodi karin inay iibsadaan buugaag qaaliya ama buugaag marka suuqa aad ka iibsanaysid ku jooga lacag fara badan imika waxaad haysataa chance aad ku iibsatid mar labaad buugii suuqa ku yaalay qiimaha fara badan isagoo oo maxay ahayd qiimo ka duwan aad ku heli doontid ama buugga aad haysatid aad ku bedelan kartid buug kale oo faa'iido ku leh oo aad mar labaad ka faa'iideysatid runtii aniga iyo inta kale ee bulshada gobolka Sool waxaan leeyahay aan ka faa'iideysano aan u dhaqaaqno insha Allah soo dhaweyno mahadsanidin